daawadayaal waa xildhibaan liibaan cali balaag oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Boorama oo maanta isku soo dubraday wadadani ku taala xaafadda cali balaag sidii loo buuxin lahaa loona hagaajin lahaa kullay waa carratuul wada arkaysaan halkana carradii cadayd baa dhex taala liibaan waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii dhawaan ku soo baxay golaha deegaanka Boorama kullay saaka waxa uu soo baxay sidii uu bal wadadaasi u habeyn lahaa maadaama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu maalinta berrita ku soo beegay magaalada Boorama xildhibaane arrintaaba liga waran sidee wax u wadaan maanta qorshahaygu wuxuu yahay horta wadadan cali balaag tito hadii ilaahay awood ilaahay waan dhisaynaa wada cajiib oo Boorama hore loogu arag ma ka dhisi doonaa insha Allah soo socota qorshaha dawladda hoose nagu jirta inta ka horeysa maadaama madaxweyne birtooda imanayo oo noo imanayo jaamacadda Camuud kala jibintii ardayda iyo wadkayga uu imanayo annaguna waxaan ka dawladda hoose ahaan sa garanay wadadii inta jajaban ee aan ugu imanay wadadaan ugu imanay baabaaday ee jajabtay inaan iska buuxino si ay dadka martida noo imanayaan meel qurux badan iyo wada qurux badan ay u maraan oo meel goda oo gaadhigu ku shabayaan iyo bilicda laga xumaanaysa aan degmadeedu noqon oo degmadii meel kasta jaban hadii ilaahay dhaahdo aan doonayno inaan carratuul ka dhigno kabacdina wada qurux badan oo hadii ilaahay dhaahdo ay soo socota wada cajiiba oo xaafadda cali balaag tagi doonta ilaa kantaroolka ilaa geerishka carabka waan isku xidhi doonaa wada cajiiba hadii ilaahay dhaahdo waxaan leenahay degmada Boorama dadkana waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka iyo degmada wixii alla wuxuu degmada ugu qurxinayo qof kasta waa ka qayb qaataan leenahay saaxiibka nuux kadiyana waxaan leeyahay aduguna inta mutawaacnimada ka qayb qaadan leenahay aduguna wixii horumarka degmada amaasanti aad baa maasan xildhibaanadu oo shaqeynaya dadweynaha reer Boorama wadaniyada daha gartaan oo hawshooda dhinacooda ka galaan kullay waa hawl loo baahan yahay ها